بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بان أمها نقينا أساق معدسان محضردان نعموين كيسا إنوغو نعمي واوين oo aan la tirin karin ugu horeysa nicmada islaamnimada muslimiin naga dhigay ina waafajiyay cibaadadiisa alxamdulilah ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa sanadka cusub aynu soo gaarsiiyey dad badan baa sanadkii hore nala joogay hadda qubuurta ku jira allihii na soo gaarsiiyey sanadka cusub oo bisha ugu horeysa aan ku jirno bisha muxaram la yidhaahdo ilaahay baa mahadsan waxaan weydiisanaynaa sanadkana waafajiyay dadka ka faa-iideystay inuu naga dhigo cibaado kororsaday khayraadka iyo wanaagga ku dadaalay inuu ilaahay naga dhigaan weydiisanaynaa waa imtixaan cimrigana la siinaya inaan ka faa-iideysano waa muhiim jiddan waa imtixaan dadkii ee waqtigooda dhamaaday dhintay waqtigoodii u dhamaaday annagana weli waxaan sugaynaa waqtigiina ayaan sugaynaa sugitaanka aan sugayna imtixaan baan ku jirnaaye waqtiga jaanska ilaahayna siiyey dad ka faa-iideystay inaan noqonayno iyo dad waqtigii dayacay wax maalayacniya oo aan habboonayn ku daya inaan noqonayno ayaana la fiirinaya imtixaan baan waana la fiirinaya imtixaan baan ku jirnaa walaalyaal waxaan ku jirnaa bishii shahrullahi almuxaram sanadka bilowgiis ahayd oo bilaha hormadila ay ka mid tahay ayaan ku jirnaa waxaan rabaa dhowr kelima inaan ka idhaahdo bishan kelimada ugu horeysa bisha maxaa la jiday oo cibaada maxaanse la jidaynin qofka markii mawaasimta oo ilaahay u soo gaarso ka faa-iideysana waa in waxyaalaha uu sameynayo ama cibaadada uu sameynaya noqdaan cibaada sugan daliil leh nebi moxamed looga dayaday inay noqoto haddii kale waxyaala waxa kuusoo galayo internetka iyo social media lagu soo diray oo aadan maxay ahayd aadan hubin bala inaad ku kaadaa dhici karta marka cibaadadana shuruuda waxaa ka mid ah mutaabaca nabiga inaad ku dayato sala allahu calayhi wasalam iyo ikhlaaska wax badan baa soo geli kara bishan oo dad kale ay sameeyaan sida shiicada oo kale ay sameeyaan oo aad aragteen meelaha qaar aad ku aragteen ama aad daawateen waxyaala ay sameyn inay isjejeexaan ama jirkoodii ay la dhacaan iyo waxyaalo kale ay sameynayaan oo ay leeyihiin risqi ha laisu waasiciyo ilahay baa waasicinayay xinaa hala saarto cilaanka hala saarto hala ismusaafaxeeyo waxyaalo badan baa jira oo shiicada ay sameynayaan marka intaas o dhan waad ku ogaan kartaa waxaa soo orooray maxaa daliil leh maxaasan daliil lahayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bishaan soonkeeda uu ka hadlay guud ahaan buu uga hadlay guud ahaan ayuu uga hadlay dad qaar waxay sugayeen tobanaadka maalin tobnaadka ay sugayaan ama maalinta sagaalaadka ayay sugan bishan guud ahaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afdalu الصiyaami bacda shahri ramadaan صiyaamu shahri اllahi اlmuxaram ramadaanka kadib soonka ugu fadli badan ani ramadaanka wixii ka dambeeya soon badan baa la jideeyey soonka ugu fadli badan bacda ramadaan waxaa weeyaan waa soonka bisha muxaram weyn awalkeed ha noqdo ama aakhirkeed ha noqdo ama dhaarkeed ha noqdo ama dhamaadkeed ha noqdo sidaas ayuu nabigu sal ly slam qor xadiidkan uu haddii saxiix muslim wariyey riwaayadaas intaasay ku gaabsatay waa afdalu siyaami bacda shahri ramadaan muxuu yidhi nabiga alayh salatu salaam soonka ugu fadli badan ugu ajar badan ramadaanka markii lasoo dhaafo kadib waa bisha muxaram in la soomo marka nebigu alayh salatu salaam waxaa weeyaan bisha fadligeedii soonka uu leeyahay sidaas ayuu u sheegay xadiid kalena uu inoo soo socdaa waan tilmaami doonaa riwaayad kale waa xadiid kale hule isla xadiidkan oo muslim wariyey nabigu wuxuu leh sal ly slam afdal siyaami bacda ramadaan shahrullahi almuxaram waxa uu ku daray riwaayadsa ku daraysaa wa afdalu salaati salaada ugu fadli badan bacda alfariida salaadaha waajibaadka shanta markii lasoo dhaafo oo qofku guto salaada ku xigta ugu fadli badan waa salaatu leil qofka habeenka inuu soo kaco ayagoo dadka ay jiifaan inuu cibaadaysto ilaahay qiyaamu leil inuu istaago waa salaada ugu fadli badan haddaba inuuna ka faa-idaysanaa bishaan fadliga ay leedahay soonkeeda inta haddana soo dhaaftay waxaan umalayna hadda waxaan maraynaa 7 ayaan maraynaa berito waa 8 intii hore way kusoo dhaaftay bisha weli way dhiman tahay dhowr iyo 20 baa dhiman waa inaan ka faa-idaysanaa
naftaydii naftiinaba waan ku baraarujin inaan ka faa'iidaysano guud ahaanba bisha soonkeedii ama khamiis ku aadi ama isniin ku aadi ama maalmaha kale ku aadi inaan soonno salaatuleilkan aan ku dadaalno haddii ilaahayna waafajiyo. dad badan bay ku adag tahay inuu ilaahayna waafajiyo culayska habeenkii sariirta nagu dhejiyay oo dembiga sabab u yahay inuu ilaahay naga qaado. sidoo kale nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam caaisha waxay ka warinaysaa radiallahu canha, waxay leedahay caaisho ma arkin bay leedahay nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam soon uu dhammaystirtay bil dhammaystiran ilaa ramadaan mooyaan. taas waa ramadaanka. ma arkin bay leedahay nebiga calayhi salaatu wassalaam bil oo ka soon badnaa bisha shacbaan. bisha shacbaan aada u soomi jiray, bishaana wuu soomi jiray. marka waxay ka hadlaysaa caaisha radiallahu canha bisha uu dhammaystiran jiray iyo bisha ugu soonka badnaa. shacbaanna saas buu leey nabiga bay le caaisha radiallahu canha. laakiin fadliga marka la yidhaahdo fadliga soonka bacda ramadaan waa bisha muxaram, taas aan ogaano. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu ka hadlay bisha ramadaan guud ahaan buu uga hadlay soonkeedii, si khaas ahaana waxa uga hadlay bisha muxaram ama bisha zaka aan ku jirno hadda maalinteedii tobnaad wuu ka hadlay. nebigu wuxu yihi sal alla alay wasalam siyaamu yowma caashura, maalinta caashura markii su-aal laga weydiiyey soonkeedu wuxuu yidhi axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablahu, inuu ilaahay dhaafo dembiga sanadkii aan soo dhaafnay bishaan ka horeeyey dembigiisa inuu ilaahay dhaafo. waxaa la sunaynayaa marka waajib ma aha, waa sunna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soomay maalinta tobnaadka in la soomo. sagaalaadkana waynu tegi doonaa. xadiidka hoos ku qoran fiiri, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey su-ila rasuulu llahi sala allahu alay slam can siyaam yowma caashura, maalinta tobnaad ee bisha muxaram ama zako ayaa su-aal laga weydiiyey ka waran baale. nebi muxuu yidhi yukafiru ilaahay muxuu ku dhaafayaa asana almaadiya, sanadkii hore dembiyadii la galay ayuu ilaahay ku dhaafayaa. dembiyadaasi dembi bini aadan ma, dembi ilaahay laga galay weya. dembiga bini aadanka laga galay xantiisa iyo dulmigiisa iyo gardaradiisa iyo in la duro nasabkiisa waxa laga sheego la hanto, waxaa weeyaan laguma dhaafay. waa inaad bini aadanki aad u tagtaa, waa inaad cafi aad tiraahdaa, wixii aad ka dulmisa waa inaad u celisaa. dembi bini aadan wax ka culus ma laha. aan iska ilaalino, carabkeena aan ilaalino, ummadda aan ilaalino, xaqeeda aan ilaalino, yaanana dulmiga aan iska ilaalino. bini aadan yaana dulminin, ilaahay uu kuu dhaafay dembiyadiisa. laakiin bini aad ina dulmi aad ka gasho, aad gardaraysato oo aad xamato oo aad dulmiso, waa inaad isaga tugtaa uu ka cafiyaa. xaqiisii weeyaan, xaq alle ma aha. marka sanadii lasoo dhaafay dembigeed ayaa lagu dhaafaya buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiid ibn cabaas wariyey radia allahu tacaala canhuma muxuu yidhi ibn cabaas qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lain baqiitu ilaa qaabilin, sanadka soo socda haddii ilaahay gaarsiiyo, asana alqaadima haddii ilaahay gaarsiiyo, la asumana taasic buu yidhi. waa xadiid muslim wariyey. sagaalaadkana waan soomayaa buu yidhi. waxaada marka maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam sagaalaadkana waan soomayaa, in la soomo way fiican tahay. nabiga laakiin sal ly slam ma uusan gaarin sanadkii ku xigay, ma uusan gaarin tobnaadka ayuu soomay. marka tobnaadka waxaa weeyaan waa sunno nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay uu soomay oo dadkiinuu amray. sagaalaadkana waan soomayaa buu yidhi, maalinta tobnaad ka horeysa waan soomayaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabiga calayhi salaatu wasalaam sababtu u soomay tobnaadka, xadiidka cabdullahi bin cabaas wariyey radiallahu canhuma muxuu yidhi nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam markuu soomay maalinta caashura tobnaadka markuu soomay oo dadkii nuuri sooma uu yidhi, amarka uu ku bixiyey, waxay yidhaahdeen asxaabtii waxay yidhahdeen yaa rasuul allah, maalinta tobnaadka aada soontay oo aadna amrayso waa maalin yahuudidii nasaarada ay weyneeyaan. sidaasay ku yidhaahdeen. nebigu muxuu u jawaabay? nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii sanadka soo socda aan gaaro in shaa allah waan soomaynaa buri maalinta sagaalaadka.
yahuudan khilaafayna sagaalaadkan ku daraynaa buu yidhi. laakiin ibnu cabaas wuxuu yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sanadkii ku xigay muusan gaarin ee waa la oofsaday sala allahu calayh wasalam. xadiidkaas waa xadiid saxiixa weyn. marka sababtu u soomayo waxaa weeyaan xadiidka noo soo socda ayaa caddayn doonee yahuudi markuu arkay maxaad u soomaysaa markii la yidhi waa xadiidka soo socdeen. laakiin xadiidka waxaa ka cad nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu soomi laha haddii uu gaaro maalinta sagaalaadka isagoo khilaafa yahuudida. laakiin maalinta tobnaadka soonkaa la jideeyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sababtu waatana fiiri. nabiga calayhi salaatu wasalaam madiine markuu yimid qadima anabiyu sala allah alay slam almadiina muxuu arkay fara'a alyahuud tasuumu yahuudiyu soomayso ayuu arkay yowmu caashura maalinta caashura bay soomayeen. markaasa wuxuu yihi faqaala maa haada maxay tahay maalinta aad soomaysaan? waxay yidhahdeen haada yowmun saalixun waa maalin wanaagsan bay yidhahdeen. waa maalinta ilaahay uu badbaadiyey reer banu israa'iil nebi muuse qowmkiisa uu ka badbaadiyey cadowgoodii fircoon uu ka badbaadiyey. nebi muusena wuu soomay bay yihahdeen saasaan u soomaynaa. yahuudida saas bay u soontay. nebi muxuu yidhi alayh salatu salaam markuu arkay yahuudida saa ay tiri wuxuu yidhi annagaa idinkaga owleysan buu yidhi annaga kaga owleysan fa ana axaqu bimuusa minkum. markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu soomay dadkiina soomaa buu yidhi waad soomi kartaan buu yidhi. waa sababta loo soomo marka maalinta tobnaadka. maalinta tobnaadka mar daliilkeeda banaanku yaala. maalinta sagaalaadkana waa xadiidka haddaan soo qaadanay uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadka soo socda sagaalaadka waan soomayaa buu yidhi. marka sagaalaadka waad soomi kartaa. maalinta tobnaadka waa maalinta nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soomay. xadiidkan waxaa weriyey bukhaari ayaa weriyey. ibnulqayim wuxuu leeyahay sheekh ibnulqayim wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala kitaabkii zaadulmacaad wuxuu ku sheegay maalinta tobnaadka in la soomo ana siyaama caashuraa 4 anwaac 4 qaab bay ku imaanaysaa. 4 qaab alfiiri qofka muslimka marka 4 qaaba waa iswaafaji kara. muxuu yidhi ibnuqayim ima an yasuuma alyawm alcaashir waxdahu. qofka muslimka maalinta tobnaadka maadaama nabigu uu soomay keligeed uu soomi karaa. keligeedna waa la soomi karaa. culimadana way ka hadleen shekh islam ibnu taymiya uu ka hadlay, imaamu nawwina uu ka hadlay, ibnu xajarna uu ka hadlay in keligeeda la soomi karaa. bal ibnu xajar wuxuu sheegay xitaa haddii maalin oo sabti ay waafaqdo waa la keliyeli karaa keligeed waa la soomi karaa buu yidhi ibnu xajar. marka qofka muslimka 4 xaaluhu sheegay ibnuqayim muxuu yidhi maalinta tobnaad keliya inuu soomo uu yeeli karaa buu yidhi. qofka muslim maalinta tobnaad keliya waad soomi kartaa. maalinta tobnaad keliya waad soomi kartaa. ama ma ahe maalinta tobnaad waxaad ka hormarin kartaa maalinta sagaalaadkan waad la soomi kartaa. aw waa xaaladii labaad maca taasica maalinta sagaalaadka inaad la soonto waa xaaladii labaad. aw maca alxaadi cashar aw maca alxaad ama maalinta tobnaad intaad soontid maalinta ku xigta oo 11 inaad la soonto ayadana waad yeeli kartaa. xaaladda afaraad maxay noqonaysaa aw yasuumu 3 ama 3 inuu soomo maalinta tobnaadka maalinta ka horeysa sagaalaadka oo nabiga alayh salatu salam waan soomaya u yidhi inuu la soomo sagaalaadka u soomo tobnaadkana u soomo. sidoo kale maalinta 11 uu ku daro oo bacdahu uu ku daro waa xaaladda afaraad. marka 3 maalmood inuu saa ku soomo. maxaan nidhi xaaladda kood maxay tahay? waxaad soomi karta maalinta tobnaad keliya. waxaad kala soomi karta maalinta sagaalaadka maalinta tobnaadka waa xaaladda labaad. sidoo kale waxaad soomi kartaa maalinta tobnaadka iyo maalinta 11. sidoo kale waxaad soomi kartaa 3 maalmood maalinta sagaalaadkana waad soomi kartaa tobnaadkii iyo 11 intaba waad samayn kartaa. xaaladda ugu dambayso 3 maalmood in la soomo wa fi lxaalati alakhiira tataxasalu faaidatu siyaami 3 ayaamin min ashahri. 3 maalmood inaad ka soonto ayaa ku xasilayso ajarkeedii maadaama bishaan soonkeedu u ajar badan yahay. inaad maalinta tobnaadkana aad soonto maalinta ka horeysa sagaalaadkana aad soonto maalinta ka dambaysana aad soonto waxaad ku helaysaa 3 maalmood inaad bishi aad ka soonto oo ajar badan aad ka hesho. intaba waad yeeli kartaa. sidoo kale sheekh cuthaymiin wuxuu yihi raxmat ullahi calayhi wuxuu yihi waxaa fiican walafdal an yasuuma almuslimu yowma alcaashir maalinta tobnaadka inuu soomo wayudiifa uu ku daro muxuu yihi inuu ku daro maalin inuu ku daro ama maalinta ha ka horeyso ama ha ka dambayso ama ka horeysi oo sagaalaad soon ama ka dambaysay maalinta 11 soon. sidaasuu sheekhu uu yidhi waidaafat alyawm ataasi. laakiin muxuu yidhi teebaa fiican inaad maalinta tobnaadka maalin aad ku darto maalinta ka horeysa inaad ku darto maa ka fiican oo sagaalaadka aad ku darto ayaa fadli badan ama ma ahee maalinta ka dambaysa 11 inaad ku darto ayaa fadli badan.
teebaa fadli badan labada qaybood inaad tobnaadka kow iyo tobnaad aad ku darto ama tobnaadka sagaalaad ka horeysa sagaalaad ka horeysa aad ku darto teebaa fadli badan sheekhu wuxuu leeyahy sheekh Uthaymin raxmatullaahi calayh wuxuu yidhi waxaa fiican maalinta sagaalaadka nebigu uu yidhi waan soomayaa in laga horeysay ayaa ka fiican haddiiba mid aad ka hormarayso ama mid aad ku darayso maalinta ka horeysa inaad ku darto ayaa fadli badan haddii maalinta ka dambaysa aad soontidna dhib ma laha laakiin maalinta sagaalaadka in lagu daro ayaa ka fiican waxaan maxay ahayd naftiinaba aan ku baraarujinaynaa inaan bishaan aan ka faa'iidaysano cibaadada aan badino salaatuleilka aan badino wardiga aan badino qur-aan akhriskana aan badino soonka nabiga calayhi salatu salaam bishaan uu sheegay fadli badan uu ku sheegayna dembiyadana lagu dhaafo hal sana dembiga lagu dhaafana inaan soonno xitaa markii tobnaadka aan ka baano ko iyo tobnaadka wixii ka dambeeya bishii weli way socotaa inaad soonto soonka aad badiso waan isu dardaarmaynaa nafteydan waan ku baraarujinayaa maalmaha haddii aad maalin kasta aadan soomi karin ama mahe maalimaha inta bishaan aan ku jirno markii sagaalaadka aad soontid ama tobnaadka aad soontid ama ka hor ama ka dambeysa isniinta iyo khamiista inaad la beegsato maalmahaas iyagana fadli gaarba kusoo aroray ayadoo haddana bishii lagu jira inaad soontaan sanadkeena hadda maanta oo sanadkan hadda aan ku jirno waxaan u malaynaya waxay ku aadan tahay sida taariikhda ay qorayso maalinta sagaalaadka waxay ku aadan tahay maalinta jumcada maalinta tobnaadka waxay ku aadan tahay maalinta sabtida ay ku aadan tahay haddaba maalinta beri innaga waxay noo tahay waa maalin khamiis ah jumcadan waa sagaalaadkii marka maadaama bishii barakaysanayd aan ku jirno berinu ay khamiis tahay beri waa khamiisna fadliga soonka uu ku soo orooray haddana bishii muxaramkana aan ku jirno si laba ajar aad u hesho bisha muxaram soonkeedii fadliga badnaa si aad u hesho iyo si aad u hesho soonkii khamiista oo fadli badnaa ilaahay acmaasha loo bandhigahay si aad u hesho berito qofkii soomi karana uu soomi karo maalinta khamiista maxaa ku hega jumcada oo sagaalaadka maadaama nabigu uu yihi sal alay slam waan soomaya in la soomo iyadana way fiican tahay ama maalinta aan idhahda jumcada maalinta jumcada oo sagaalaadka maalinta jumcada ayaa sagaalaadka ama beri khamiista waa khamiistaan aan usoonta mooyaane oo fadliga badan oo bishaan maalinta jumcada ayaa sagaalaadka ah sabtidina tobnaadku weeyanaysan ku dhaafin baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran meel walba aad joogtaan khayr iyo cimri dheer iyo cibaado iyo dembi dhaaf ayaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahu dembiyadeena dhaaf baan leenahay dembiyadeena tiraday ka bateen ilaahu dembiyadeena dhaaf ilaahu naarta naga xoray ilaahu waalidiinteeni dembigooda dhaaf waalidiintooda ilaahu dembigooda dhaaf culimadeena waxna soo bartay iyo kuwa hadda weli aan wax ka baran ilaahu dembigooda dhaaf dembi culimadoodiina ilaahu u dhaaf dembiga culimada ilaahu u dhaaf waalidiintoodii khayr iyo wanaag iyo cibaado iyo soon ayaan isu rajaynaynaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu